baryahan dambe gudaha magaalada Boorama ma aha wax la qariibsado in la arko haween ka qayb galaya dhismaha guryaha iyagoo noqonaya shaqaale hoosaadka loo yaqaano kuuliga haweenkan ayaa waxa aad u adag xaaladda shaqo iyo mid nololeed ay ku nool yihiin waxana ay qaarkood telefishinka Hoon Cable TV uga warameen waayahooda iyo hawshan ay qabanayaan culayskeeda waqtigan uu kala feenay awdaadka furna odayaashu naga aqoonana cid caawisa mid Allah ma cid kale ma jiro geega cid kale ma mid labaad kale waxaan leenahay qaar sida hawsha shaqeeyo boosha ma ku qabataan leeyahay kaba soo qad bariga shaqada igu horeysay xoog baan hay waa shaqaysan jiray laakiin imika oo kale ma shaqaysan kara waan daala lugahay daala xubnahay daala inay biyayga jiraan baan moodaa caruurtayn yaan iskaga korsada marka deedraaran heliyo deedraaran weynaynta waan leeyahay taalkayga deedraartan soo galay waan da'yara maantana wadiga yarkaya oo sii socda isbeddelkan oo magaalada Boorama ka dhacay 20 sano ee ugu dambeeyay ayaa haweenkani waxa ay ka dareen celiyeen sida ay guud ahaan bulshadu u aragto qof dumar oo wala wax ka shaqeeya ma jirin marka waa ila yaabanaydba inta ugu badan ee shaqooyinka dhismaha guryaha ayaa waxa gacanta ku haya ragga waxana ay ka warameen sida ay u arkaan haweenka ka qayb qaadanaya dhismaha guryaha faraha goobgaay sida bay ahayd bay garanay laga sameeyay naga xijaajurki wasalid ma ku jiraan dhinaca kale iyadoo ay magaalada Boorama ka jiraan boqolaal ururo samafal ah ayaa haweenkani waxay carabka ku dhufteen inay ka aradan yihiin kuwa ma samay saragteen laga qoray kana la nayiri sawirka la nayiri waa sawiray $10 baa la sawiray iyo markaas aan kala baxnay $20 dabadna sawirada waa la qaaday anna ma caawin wala naga ma caawin si kasta xaaladdu ha ahaatee muuqaalkan ayaa waxa uu astaan u yahay inay jiraan qaybo tiro badan oo bulshada ku dhaqan magaalada Boorama kuwaas oo ay xaaladooda iyo duruufahooda nololeed yihiin kuwa aad u adag Abdul Ali Yusuf Hoon Cable TV Boorama